Assalaamu calaykum. 55 sano ka hor taariikhda waxaa lagu arkay tijaabo cusub oo aan hore loo arkin ama loo samayn. Waxaana sameeyey wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Randy Grander oo da'diisu ahayd xilliga 19 sano, isagoona seexan muddo dheer soona jeeday 11 cisho. Randy wuxuu ahaa wiilka ugu weyn walaalihii, wuxuuna dhashay 1948, waxayna xilligaas culimada saynisku baadhayeen saamaynta ay yeelan karto hurdo la'aantu. Tijaabadan ka hor waxay tijaabo ku sameeyeen 15 bisadood, iyadoo la dareemay in bisadihii dhaqamo cusub ay samaynayaan kuna noqon waayeen xaaladoodii caadiga ahayd. Aynu u soo noqono Randy mar labaad. Wuxuu saaxiibadii kala qayb qaatay tartanka sayniska dugsiga sare ee magaalada San Diego, wuxuuna ka qayb qaadanayay tijaabada hurdo la'aanta. Wuxuuna kaga qayb galay isagoo aaminsan in ay dhib yar tahay. Hadduu xidho rikoor cusub, waxaa loo ballan qaaday isagii asxaabtii in la abaal marin doono, waxayna dood ka dhex taagnayd saynisyahanada dhexdooda muddada ugu sarreysa ee uu bini'aadam hurdo la'aan ahaan karo. Randy wuxuu soo jeeday 246.4 saacadood ama wax u dhigma 11 cisho iyo 25 daqiiqo. Intii lagu guda jiray muddadaas, waxaa xaaladiisa caafimaad la socday dhakhtarrada, waxaana laga caawinayay isboortiga jidhka furfura si uu u soo jeedo dhibaato la'aan. Waxaa la baaray caafimaadkiisa tijaabada kadib. Markii hore dhibaato ma aysan jirin, laakiin 2 cisho kadib wuxuu bilaabay in uu la tacaalo dhibaatooyin xagga hadalka ah, isagoo soo celcelinaya hadallada qaar macno la'aan. Wuxuuna waayay awooddii ku kala garashada shayada taabasho ahaan. Maalintii saddexaad waxaa ku dhacay in uu cadhadiisa kantarooli waayo, niyadiisa waxay bilowday in ay isbeddesho, wuxuuna ku dhacay isku dheelitirni la'aan iyo hurdo la'aan. Maalintii shanaad wuxuu bilaabay in uu xasuustiisu soo gaabato, xataa uu xasuusan waayo dhacdooyinkii dhowaa. Calaamadahaas waxay ahaayeen kuwa maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaya ilaa iyo laga gaadhayo maalintii 11aad. Dadkii dhacdada wax ka baadhayay ayaa ah kuwa sheegay in astaamihiisu waxba cabiri karin, hadalkuna uu dhib ku yahay, iyadoo dib u dhacday awooddiisii fikir ahaaneed. Laakiin akhbaarta fiican ayaa ah in uu hurday 14 saacadood oo xidhiidh ah 11 cisho oo soo jeed ah kadib. Wuxuuna la tacaalayay hurdo la'aan sannado badan, isagoo maalintii oo dhan seexan jiray 6 saacadood oo qayb ah. Ilaa maanta lama hayo qof rikoodhka jabiyey, wuxuuna sidaa ku galay buugga World Guinness Record-ka, sababta oo World Guinness Record uu mamnuucay tartanka hurdo la'aanta marka ay ogaadeen dhibaatooyinka uu kala kulmi karo qofku. Dhaktarraduna waxay uga digeen dadka isku dayida tijaabadan. Waxay sheegayaan dhaktarradu dhibaatada ugu weyn ee ay la tacaalaan dadka la tacaalaya hurdo yaridu waa suurtagalnimada in uu ku dhaco nooca labaad ee sonkorowga, iyadoo dhibaatooyin ay ka dhex dhacaan daaweynta iblogooska. Hurdo la'aantu waxay saamaysaa hormoonnada koritaanka. Sidoo kale, hurdo yaridu waxay yaraysaa dheecaanka hormoonka melatonin, kaasoo xoojiya nidaamka difaaca jidhka. Guud ahaan, hurdo yaridu waxay sababtaa dhibaatooyin caafimaad sidaan ku soo aragnay qisada Randy. Xitaa waxaa suurtagal ah in aad kari weydo in aad ku hadasho hal kelmad. Marka waxaa iga tala ah in aad ku dadaashid helidda hurdo kugu filan maalin walba, waayo jidhkaagu xaq ayuu kugu leeyahay. Intaas ayaan idiin soo bandhigay. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe saar, videogana like saar, asxaabtaada la wadaag. waad mahadsan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I feel you creeping, I can see it.